Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta kormeeray xarunta murtida iyo wacyigelinta oo uu ka socdo ololaha isxilqaan ee dib loogu dhisayo xarumaha danta guud, goobaha taariikhiga ah iyo wadooyinka. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo u kuurgalayay hanaanka uu u socdo guud ahaan ololaha isxilqaan gaar ahaan dib u dhiska xarunta murtida iyo wacyigelinta qaranka oo shaqaalaha dowladda ay si iskooda dhismihiisa ay uga qayb qaadanayaan ayaa waxa uu ka xog wareystay maareeyaha xarunta murtida iyo wacyigelinta Abwaan Cabdullaahi Cismaan Guure. maanta waxaa noo socota shaqadii joogtada noo ahayd ee ka socotay golaha murtida iyo wacyigelinta. wasaaradii warfaafinta ayaa maanta shaqada ku jirta. maalintii wasaaradda warfaafintu ay shaqada hayso waa ka duwan tahay wasaaradaha kale maadaama ay mas'uuliyad gaar ah ay saaran tahay oo ay tahay wasaaradii oo hoos imaanayay tiyaatarka qaranka hoos imaanayay. waxaa kale oo maanta farxad noo ah in ra'iisul wasaarihii Soomaaliya oo nagu soo booqdo golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka oo haddii alla ku shaqadii oo socoto inuu nagu soo booqdo weliba aan aragno asagoo na kor taagan oo badeelka dhinaciisa ka haysta oo shaqada dhinaciisa ka wada ayaduna guul kale oo farxad leh ayay noo ahayd. marka waxaan leenahay dalka kii dhisiyo kii duminaya kala durugsano kala darajo wacan. dhanka kale Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa gudoomiyay shirka toddobaadlaha ee looga hadlayo qorshaha cafinta deymaha kaasi oo lagu qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya. wasiirka maaliyadda ayaa Ra'iisul Wasaaraha uga warbixiyay guulaha laga gaaray shuruudaha deyn cafinta ee dowladda lagu xiray iyo shaqooyinka qabyada ah ee dhameystirka u baahan si loo dardargeliyo qorshaha cafinta deymaha Soomaaliya. shirka toddobaadlaha ee geedi socodka deyn cafinta Soomaaliya oo ay ka galeen dhammaan dhinacyada qaybta ka ah geedi socodka ayaa looga hadlay qodobadii ka fulay heshiiskii hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo dowladda Soomaaliya iyo dardargelinta qorshaha fududeynta in Soomaaliya deymaha laga cafiyo.